السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكسو نقشوا عن مدة ديران كلام مقنعين. ما أنت هيك وحنا نقارن دونا حوالي 10 كيني توبنات ريا أبديت كها. وحنا نقارن دونا كفر بوك قاب كلاسمه. وحنا كتست دونا كفر بوك عنا كاجا مقضى قاب كانوا سبي. ما أنت حنسكودي دونا حوالي إن ديتيلا وحول بها كان كلا سودقي يسأل ولا سودقي وكتست دونا إن شاء الله. كده بدنا حنسليه دونا قاب كا أصممين سو ديزاين كلفتيسه. أيام كتست دونا إن شاء الله. marka horeysa hadii aan iska bilaabno waxaan tagnaa file kadib new bin tag doona insha Allah new markaan nimaadno halkan waxaan ku qoran doonaa cover book ayaynu halka ku qoraynaa inta markaan niraano cover book aniga wuxuu yahay A4 ba marka ka dhiganayaa oo A4 man doonaya inaan ku sameeyo marka imika double saarmayna maadaama ayna markaan double saar sameynayno ayaa waxa la isticmaalaa markuu yahay book A4 ku sameeysan yahay waxa lagu sameeyaa coverka A3 markuu book ku sameeysan yahay A5 na waxa lagu sameeyaa coverka A4 qaabkaas loo sameeyo insha Allah marka one side man sameeyna waxa weeye A4 baan dooranaya kadib waxaan leeyahay create kadib wixii soo furi doona blank document kan ama cadaankan artboard kan cadaanka ayuu soo furi doona hadii aan design keenan tagno imika aynu joogno كو waxaan u baahanay waxa weeyna hadii aad arkato fiber texture-ka color-keena ay ka bedelan karno caadi waxaan u baahanay mapka Africa waxaan u baahanay mapka Mareykanka waxaan u baahanay farahan laftooda oo waxaan tusi doonaa faraha halka aad kala soo degayso iyo waxa aad dooranayso marka aad doonayso inaad farahan la soo degto waxyaabahan kala design aynu sameynay waxa kale oo u baahanay sawirka qofka meesha fadhiya murugaysan maadaama aynu doonayno inaynu muujino buug murugo ku saabsan buugna sidiisaba aad arkato waxa ku saabsan waxa weeye tahriib وسافرك أفريقيا إلى أمريكا مركا waxaan ugu tala galay waa idea ahaan igu soo dhacday baad markaan casharka diyaarinay ayaan mowduucan ka sameeyay ayaan yar raadiyay kadib waxa igu soo dhacay inaan ka sameeyo tahriibkan imka loo maro Brazil iyo meelaha la sii maro marka Mareykanka la doonayay loo tahriibo ayaan damcay inaan ka sameeyo marka waxaan u baahanay waxa weyn inuu sawirka buuga ka muuqda in emotion-kii muujinayo ama qof murugaysan inuu muujinayo oo meel adag maraya oo murugo ku sugan marka qofka ma soo qaatay marka keywords ka aad ku qorayso iyo qaabka aad u raadinaysaba oo ku tusi doona insha Allah waxaan taginaa marka horeysa Google-keena aan tagi doonaa si aan waxyaabahan la soo degno halkan marka timaado waxaad tagaysaa Google Images marka tagto halkan marka horeysa waxaan ku qoran doonaa waxa weeyaan wixii aynu u baahnay inaan search gareyno waxaan u baahnay marka hore inaan search gareyno fiber texture edge marka ama way qorantay ama waan qori karaa oo fiber texture hadii aad soo qoro way soo baxaysaa darkiisu fiber texture edge waan doornay edge markaan doorto oo warqad dhinac ka jaran baa soo baxaysa marka style-ka aad doonayso ayaad adigu qaadan kartaa waxaad tagaysaa tools kadib waxaad dooranaysaa color kadib waxaad dooranaysaa transparent markaad doorato waxay ka dhigantahay waxa weeyaan in shayga dollar gareysanaysa aan wax background wadin marka saas aad u eegaysaa in ko kale kaas la dhigi kartaa aad aad karto waxa la dhigi kartaa kuwa kale aad halkan ka eegtay tan la dhigi kartaa hadba adigu tii aad doonto ay la dhigaysaa laakiin qaabkaas ay la soo dhigaysaa waxa kale la soo dhigi kartaa waxa weeyaan markay noqoto sawir kiimik waxa doonaysaa hadii aad garanayso isla shaygu wuxuu ku saabsan yahay kale aniga Amazon Forest ku saabsanaa marka maxaan ku qoray man in Amazon Forest waan ku qoray marka man in Amazon Forest marka aad ku qorto wuxuu ku soo saarayaa dadka dhaqan ahaan ku nool Amazon Forest laakiin waxaad sameynaysaa halka Amazon Forest aad ka dhigtay ayaa waxaad ku qoraysaa man in a jungle ayaa ka qoranaysaa imko kale marka hadii baaritaan dheer kadib marka sawirada kolba eegto ayaad ku haboon helaysaa oo anigu markaan waxoogaa sawirada eegay ayaan sawir ka helay laakiin keywords-ka ayaad ku baaraysaa iyo qaabkaas aad la soo degaysaa waxa kale oo inagu haray qaab kale waxaynu u baahanay in la soo degno waa mapka Mareykanka iyo America waxaad ku qoraysaa mapka America kalena waxaad ku qoraysaa mapka Africa ama Africa map iyo USA map imko kale halkan waxaad ku qoranaysaa USA map baad ku qoraysaa uu ku soo saaray qasab weeyaan USA mapki ayuu ku soo saari doonaa oo factor leh marka hadda doonaysaa sida nimka uu yahay oo kala aad soo qaato factor halka raacay wuxuu ku soo saari doonaa sawir madow ama haba kala qaybsanaado gobolada qaybsanaado laakiin sawir factor ku soo saari doonaa marka kale waxyaabo kale ka soo dhigaya haddana waxaad sameynaysaa halka USA da baad ka saaraysaa Africa baad ku qoranaysaa kadib interval leed marka tiraadana wuxuu ku soo saari doonaa mapka Africa labadana qaabka aad loo soo degaysaa tusay waxa inoo haray waxa weeyaan fontka halkan aad imanaysaa waxaad tagaysaa the font waxaad tagaysaa insha Allah the font baad tagi doontaa website-ka the font marka waa website-yada ugu waaweyn buu ka mid yahay ee faraha qaab free looga soo dago waxaad tagaysaa marka the font baad dhex galaysaa the font marka soo dhex gasho halkan waxaad ku arki kartaa wuxuu leeyahay categories oo faraha marka
far waliba waxay muujisaa emotion gaar ah ama dareen gaar ah ay muujisaa far waliba marka farta aynu doonayno inaynu helno waxa weeyaan waa far horror ah ama dareen naxdin la muujinaysa marka halka hoose aad aragto fancy category-ga xagga hoose waxaad ku arki kartaa horror-ka marka doorto wuxuu ku saari doonaa dhammaan fontiska muujinaya dareen cabsi ah ayuu ku soo saari doonaa marka imko kale ta aynu ciwaanka u isticmaalnay kale blood baa la yiraahdaa in yar hadda soo socoto ta blood hadii aad arki karto ta uu ku qoran yahay socdaalkii geeridu waa tan muxuu ahaa waxa weeyaan waa deadly killer marka faraha halkan kala soo degaysa kaliya waxa kaliya baanta waxa weeyaan waa download baad ayar dooranaysa kadib ay ku download gareysmaysa qaabkaas loo soo degaysa farahan inta wixii ka dambeeyo waxa weeyaan waa inaynu galno designing markaynu isla helno dhammaan itemska oo aad u fudud oo within 3 minutes ama 2 minutes aad ku sameyn karto laakiin waxa ugu adag ee marka hore qofka qabsanaya waxa weeyaan waa idea sidii aad ku keeni lahayd waxaan qaabka loo dhigayo marka farta waynu soo helnay paper texture-ka waynu soo helnay mapska waynu soo helnay faraha waynu soo helnay sawirkan waynu sheegnay qaabka aad loo soo degiso kaliya waxa inoo dhiman waxa weeyaan waa isku aadintaada iyo qaabka aad adigu design ka dhigato anigu qaabkan aan u dhigtay adigu qaab kale ayaad u dhigan kartaa marka waxaan tegayaa cover book-kayga banaana kadib imika waxaan sameynayaa inaan soo qaato paper texture-kayga aan qaadanaya halkan aan keensanaya halkan aan soo dhiganaya kadib control T baan leeyahay waxaan sameynaya inaan sidan kale u rogto oo waxaan sameynaya inaan halkii ka marka hore noo sameysan maahe ku kale ayaan sameynaynaa oo xagga kale aan ka rogaynaa kadib inta markaad sameyso waxaad tegaysaa sawirkii waxaad soo qaadanaysaa ahaa markaa kan ayaad soo qaadanaysaa halkan aad keensanaysaa halkan aad soo dhiganaysaa kadib waxaad sameynaysaa waxa weeyaan inaad ka hoos mariso fiberka markaad ka hoos mariso sawirkan wuxuu inoo leeyahay filter halkan aad adeeg karto wuxuu inoo joogaa luminosity aad gelinaysaa sawirka normalkiisu waa sidan normalkiisa haddii aan geeyo qaabka weeyaan normalkiisu qaabkaas uu sameeyay laakiin si aynu u muujino wixii hadeen imka sidan ku gelino inooma muujinay meeshii kan doonay marka waxaynu yiragelinaa si aan old oo kale uga yara dhigno ama wax yara yara raagay oo kale waxaanu ka dhiganaynaa waxa weeye luminosity oo black and white baynu ka dhigaynaa colorka shaygaas ruudana waxaan ku doortay waxa ku yara fiicanta waa bright colorska kamid tahay oo waa color aad u yara muuqanaya ayaan ku doortay kadib waxaan sameynayaa luminosity-ga markaan ka dhigto kaliya inagu haray waxa weeyaan inaan soo waxa weeyaan waa texture-ka marka halka iminka texture baan ku qoray kadib interbinary texture fara badan ku soo saari doonaa oo kala duwan ay ku soo saareen kadib texture-ka aad adigu jeceshahay ay qaadanayso marka anigu waxaan isku dayay ku ay ka yara muuqato xagtin oo kale si marka wixii uu ugu yara ekaado wax yara u muujino dareenkii aynu ugu talagalnay buuginu muujiyo si aynu u soo dhaweyno waxaan soo doortay mid yara muxuu ahaay xag yara leh oo scratches ka muuqdaan kadib iminka kale waxaanu qaadan karnaa ama mid kale aynu qaadano kanaynu qaadanayna waa imka hadeen doono inkastoo kan cadaan yahay oo cadaan far badan ku jiro laakiin haddii aad control copy soo tiraado oo aad photoshop timaado control v tiraado control T baad leedahay kadib saas aad soo weydiisay sawirkaaga saas aad ku dhameystiranaysaa marka qaabka ugu dhameystirato ayaa waxaad sameynaysaa inaad tagto halkan filterska kadib waxaan ka dhiganayaa saasaan soo leeyahay imka kale waxaan ka dhiganayaa waxaan doonayaa scratches inay si fiican uga muuqdaan buuga kaasaan imka kale ka dhiganayaa oo overlay-ga markaan ka dhigto kadib haddana waxaan sameynayaa waxa weeyaan inaan halkan magacii ku qorto kadib magaca halkan aan ku qoranayaa imka kale halkan waxaan ku qoranayaaba magac baynu bixisanaynaa aan ka ahayn tabaalaan ku qoranayaa tabaale marka erayadan macnahoodu badanka waa Soomaali oo tabaale waa dhibaato waaqlina waa cidla marka waa ka hore magaca ku qoran waaqla waa cidla marka tabaala taa qoranaysa marka waxa weeyaan imika hadii aad karto fartani waxay muujinaysaa waa far muujinaysa cad xasmaadii qaab dhiig oo kala ama gorro kala ay sameysantay faraha kale aan soo dejiyo waxa kamera imika kala killerkii oo kale aynu deadly killerkaas hadii aan imika doorano waxaad arkaysaa iyada lafteedu qaab fiican bay u qoraysaa laakiin iyada waxa laga yaabaa inaan qofku si fiican u yara fahmin inkastoo la akhriin karo hadana hadii aan saan ilaano inaan ka dhigana iyada lafteeda وفر في عويان وسف عنه برمس كدي واحد نسمينا حنا لبضي ماب بدل سود جيسا لبضا ماب مركا يجع لدك يرجع تروحين باجرون هديات كسود جسته كله أفريكان ماب فكتر بعض قرطي كدي هديات باجرون كله سود دكتور باجرون كقاب كده قصار لهذا ما كيرت سيا أو كلام قلينه كدي واحد سمينا سمركا حويان صورة على سود جيسو وين هاي كواليتي نقدر واحد تقولنا هاي كواليتي كده وين هاي كانوا سبيكسلز كده كاركتا يمكن كان واحد وين 1000 times 1080 أما هو كون إلا كون يستيتن
kun lagu dhufto ku state waa dimensionskiisa marka pixels ku aad bay wanaagsan yihiin laakiin kun wixii ka hooseeya shucaaca ka gali doona right click baan leeyahay copy baan leeyahay kadib waxaan imanayaa Photoshop kaygii Ctrl V baan leeyahay Ctrl V markaan idhaahdo waxaan samaynayaa inaan selection kayga doorto kadib waxaan samaynayaa inaan intaa hoose factory stock aan ka dhigid karay kadib Ctrl waxaan leeyahay D selection ka saan isaga qaado kadib waxaan tagayaa eraser tayda magic eraser tool baan dooranayaa kadib intaa colorka background ka saarayaa waxaan dooranayaa map kayga waxaan tagayaa effects kadib color overlay baan tagayaa cadaankaas aan ka dhiganayaa si marka aan ugu samayn karo design-kii kadib Ctrl T baan leeyahay saasaan yareeynaya halkan aan soo dhiganayaa imka kale kadib halkaas aan dhiganayaa hoose waliba inaan si fiican muuqanbad mooda waxaad isku dayanaysaa aad isku dayaysaa inaad isku match garayso background-kaaga iyo icon-ka colorkiisa oo icon-ku inuu muuqdo la rabaa imka orange huruudaas kala hadii aan ka dhigto muuqanaya kadib haddana waxaan samaynayaa kii Mareykanka laftiisa sida loo soo degaysa aad background-ka uga saaraysaa halkan aan imanayaa kan Mareykanka soo qaadanaya halkan aan soo dhiganayaa kadib isagana waxaan samaynayaa inaan kan hoose layer aan tago copy layer style idhaahdo aan tago kii Mareykanka right click aan idhaahdo best layer style baan leeyahay kadib huruudaas aan ka dhiganayaa waxa weeyaan waa dots-ka dots-kani waa stroke pen tool-kan ku sameeyay waxaad tagaysaa pen tool-kaaga halkan aad click leedahay kadib markaa meelaha dhexda markaad marayso aad click odhanaysaa kadib shift aad qabanaysaa saasaad gooboyo samaynaysaa saanaad markaa ta Africa ugu soo dhaadhacaysa saa markaad ugu soo dhaadhacdo kadib Ctrl waxaad tagaysaa pen tool-kaagii filkaad ka saaraysaa kadib waxaad tagaysaa stroke-gaaga orange ka dhiganaysaa waad kordhisanaysaa markaa tirada imka kale 3 baad ka dhiganaysaa kadib haddana halkan aad imanaysaa dots baad dooranaysaa kadib waad ka baxaysaa haddii aan imka markaa enter idhaahdo waxaad arkaysaa dots-ka aad buu yiriiri laakiin haddii aynu kordhino imka kale halkaa 15 ka dhigano enter idhaahno waxaad arkaysaa dots-kii si fiican ayay u muujismeen Ctrl T baan leeyahay kadib waxaan samaynaynaa saa yaro durkiyo waxaad arkaysaa si fiican uma muuqdo waxaan samaynaynaa inaynu bedelno colorkiisa oo aynu bal white ku eegno kolba kii muuqanaya aynu ka dhigayna marka white laftiisa si fiican uma muuqdo laakiin waxaad isku day doontaa inaad kan shadow yara geliso ama aad rectangular kala dul dhigto si markaa uu u yaraado whiteness-kiisa soo muuqda ee aad ka soo muuqanaya waxaan samaynayaa marka map-kan ka sareysiinaya shape-ka kan kalena waan ka sareysiinayaa shape-ka ee dots-ka ah kadib waxaan samaynayaa inaan rectangular soo qaato saanaan leeyahay kadib waxaan samaynayaa sawirka ayaan dulgeynayaa sawirkan muxuu ahaay aynu background-ka ka dhiganay ayaan dulgeynayaa kadib waa black baan ka dhigayaa tan okay baan leeyahay kadib waxaan samaynayaa inaan opacity-ga dhimo ilaa intaas ayaan geynayaa marka imika hadii aad karto mapkii iyo dotskiiba si fiican bay u muuqdaan kadib waxaanu samaynaynaa inaan halkaa ku qorano socdaalkii geerida aynu halkaa ku qoraynaa socdaalkii geerida marka socdaalkii geerida waxay la macnataan safarkii geerida adoo marka maadaama qofku khatar u bileeyo ayaynu ugu qoraynaa kadib waxaan samaynaynaa orange aan yellow ka dhigto aan halkaa labada qaaradood dhexdooda dhiga marka waayo waxaynu doonaynaa inaynu qeexno wadada la maray halka laga tagay iyo halka la tagay marka socdaalkuna inuu intaa yahay aynu u qeexno ama qofku socdaalkan la sheegay inuu yahay inuu Afrika ka tagay oo America uu socdaal u galay marka kadib dot yar baynu halkaa dhigan karnaa intaanu soo yarweynayno aynu cadaankaaga ku diisano saa dhexda ugu beegno ayaa waxaanu samayn karnaa in arrow gashano marka arrow-gan doonayna gashano waxa weeyaan in uu dhinaca Afrika ka yimaado oo Mareykanka u socdo waxaanu samayn karnaa inaynu tagno Google-ka halkan oo kale inaynu nimaadno kadib aynu ku qorno left arrow oo kale left arrow aynu ku qoraynaa enter baan leeyahay marka waxay noo saari doonaa arrow left u socda marka haddii aad arkato arrow fara badan buu ku siinayaa oo vector marka waad la dii kartaa haddaad doonto Photoshop-kaaga intaad ku noqoto adigu waad samaysan kartaa waayo arrow sida loo sameeyaa waxa aad maba adkaba oo wax adag maaha kana nimka qaadan karnaa right click baan leenahay kadib copy baan odhanaynaa waxaan tagnaa Photoshop-keena Ctrl V baan leenahay kadib waxaan samaynaynaa halkan aynu imanna selection-keena kana aynu select gareysanaa layer via cut baan leenahay kadib kan oo san iska delete gareynaynaa delete baan leenahay kadib waxaan tagnaa eraser-tayda eraser-ta markaan nimaadno layer-keena in dooranaa kadib background-ka iyo cadaanka dhexdeena ka saarnaa waxaan sameynaa search meesha weyn ka saari karnaa delete intaan raano kan aynu Ctrl T odhanaynaa kadib shift baan qabanaynaa saasaynu yaraynaynaa saa markaynu yarayno check baan leenahay waynu soo qaadaynaa halkan aynu keenaynaa halkaas oo kale aynu keenaynaa kadib waxaan sameynaa inaynu cadaan ka dhigno marka color overlay cadaan baan ka dhigaynaa check baan leenahay
kadib waxaan noqonaysaa inaynu circle yar oo kala dhex gelino si markaa uu arrowgu muuqdo arrowgii baan imika muuqanin haddii aad arki karto saasaan leenahay kadib waxaan sameynaa waxaan maad gareynaa arrowgii layerka aynu center iskaga dhigaynaa kadib waxaan sameynaa inaynu circle-ka root ka dhigno ama yellow kadib waxaan sameynaa in circle-ka xagga hoose marino arrowgu kaliya imika haddii aad arki karto root ah sawirkuna cadaan bi marka waxay ka dhigan tahay qofka Afrika ka tagay Mareykanka uu socdaalkii geerida weyn buuga tawala la yiraahdaa kadib waxayna dhacay design gareysay marka way diyaarsan tahay designer by Solo Graphics kaas waan soo diyaarsaday oo qoraal aan u qortay weeyaan kadib layer keer ma soo qaadanaya halkan aan keensanaya kadib halkaas aan keenaya kadib check baan leeyahay imika uu coverkii symbol ah qaabkaas aan u samaysanay waliba qaaradu imika aad bay yareer tahay aynu yareeynayno qaabka yareeynay check baan leenahay si ayaduna si fiican ugu muuqato qaabkaas aad u samaynaysaa inaad mock-up geliso iyo hawlahaasina waa hawlo gaar ah oo aad ka heli karto YouTube channel-ka qaabka loo geliyo buugga muxuu ahaayay mock-up qaabka loo geliyo fadlan haddii aad channel-ka hore la soconin fadlan nagu soo biir subscribe saar casharka like gare la share gare la wadaaga asxaabtaada wixii faallad qabtana comment-ka hoose ku raac wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh